reer baadiya haddaanan anaga waaba dhammaanay haddaan dardaarmayna haddaba hanoo dhegeysta dadaa meydka in lacag ku qaadan doono oo dhihi doono daday abaar naga laysay haddaad meydka in lacag ku qaadatid soo maahan dhuxulo naareed allaha kaaga dhigi dhuxul waa fariin quus ah dhiilo iyo weliba dhibaato xambaarsan welibana aad u culus cidda ay ku socotana ay qusayso madaxda dalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed inta eebe wax uu siiyay wiilkan dhalinyarada ah ee ku sugan miyiga fog ayaa fariin marqur ah malaayiin dad ah ka kicisay dareen ku abuurtay ayuuna ka soo diray xilli guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka jirto abaaro aad u xoogan iyadoona haatan la tilmaamaya in gebi ahaanba ay basbeelayaan xoolihii xoolo dhaqatada ay lahaayeen welibana oon iyo weliba haraadi gaajo si weyn u saameeyay reer guuraaga ka fog magaalooyinka ayaa waqtigan u muuqda in dhibaatooyin aad u xoogan uu wajahaya iyadoona ku dhawaad 2 sano wax roob ah uusan ka da'in ayayna dadka reer guuraaga tilmaameen waqtigan in gebi ahaanba wixii xoolo ay dhaqanayeen ay abaartu ay ka salfatay waqtigan waxa ay wajahayaan marxalado aad u culus iyo weliba dhibaatooyin u horeyso haraad iyo weliba gaajo iyadoona fariimaha kala duwan ee ka imaanaya ay u muuqdaan kuwa markaasi si weyn u dareen kicinaya bulshada Soomaaliyeed qaybo badan oo kamid ah dalka waxaa si xoogan saameyn ugu yeelatay abaarta ba'an ee ka jirta iyadoona u muuqata in hay'adaha gargaarka bini'aadanimo ee Soomaaliya waqtigan ay wajahayeen musuqmaasuq aad u hareereeyay iyadoo dadkii reer miyiga ah ama dadkii tabartirayna waqtigan gacanteeda ay gaari la'san tahay qaybo badan oo kamid ah dalka ayaa sidan oo kale qayladaan iyo weliba dhibaatooyin aad u xoogan kaga imaanaysa fariimaha ka imaanaya ay yihiin kuwa markaasi si weyn dadka damqasho iyo dareen ugu abuuri karo xilligan iyadoona markaasi ay abaartu ay u sii muuqato in ay sii xoogaysanayso welibana in muddo ah dadka ay la daala dhacayaan waxaana sidoo kale fariimo ay u dirayaan dadka reer guuraaga ee abaartu sida xoogan ay u saameysay madaxda dalka iyo weliba sidoo kale hay'adaha gargaarka bini'aadanimo si markaasi ay u gaarsiiyaan ugu horeeyaan biyaha oo ay markaasi cabi lahaayeen reer guuraaga ayaa u muuqda muddooyinkii ugu dambeeyay culaysaadka abaartu ay saameynta xoogan ay ku yeelatay inay markaasi si xoogan ay u saameysay deegaano badan oo kamid ah ayayna gebi ahaanba xoolihii ay dadku ku dhaqanayeen ay ka soo baabisay taasi oo aan waqtigan ay kaga ceertoobeen welibana markan ay la daala dhacayaan xaaladooda nololeed waxaana sidoo kale ilaa ay haatan deegaano badan oo kamid ah dalka Soomaaliya aanan weli gaarin gargaarka bini'aadanimo ayaana la tilmaamayaa intii ay qayladhaantu ay socotay ilaa ay hadda weli inta laaba aanan loo qaadin laakiin waqtigan ay wajahayaan culaysaadkoodii ugu xooganaa reer guuraaga ayaana la tilmaamayaa waqtigan in marxaladaha culus ee kaga imaanaya abaarta iyadoona markaasi gebi ahaanba xoolihii ay biilanayeen ama ay noloshooda ku maareyn lahaayeen gebi ahaanba ay ka basbeeleen haddana beeraleydii ama beerihii ay abuuranayeen wax roob ah uusan ka da'in oo waqtigan saameynteeda xoogan ay ku dhalatay fariinta wiilkan dhalinyarada ah ayaa mar qura social media si xoog leh u qabsatay iyadoona markaasi ay dareen kicisay dadka Soomaaliyeed oo welibana ay u arkeen fariin quus ah oo welibana ay ku abuurtay calooliyo aad u xoogan waana dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira miyiga fog oo haatan weli loo dhabagelin sidii lagaga hortagi lahaa ama dadkaasi loo gaarsin lahaa gargaarka bini'aadanimo